warkii oo dhan deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa laga mamnuucay isticmaalka gaadiidka aan taarikada lahayn. Axmed Maxamuud Jaamac ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyay. guddiga mideynta dakhliga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta soo saaray go'aano ku aadan gaadiidka ka howlgala Jubbaland. wasiirka wasaaradda gaadiidka Jubbaland mudane Maxamed Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay in la mamnuucay in deegaanada Jubbaland lagu wato gaadiidka aan lahayn taarikada laga bilaabo 6 bishan January ee sanadkan 2018 oo ku aadan Sabtiga soo socda isagoo u baaqay gaadiidleyda aan lahayn taarikada inay isdiiwaan galiyaan gaadiidka aqoonsi la'aanta ahna goobaha lagu sameeyo aqoonsiga gaadiidka ay tagaan. gaar ahaan wasaaradda gaadiidka haddaan nahay waxaan soo dhawaynaynaa fikirkaas mideynta dakhliga ah waana la shaqaynaynaa wasaaradda maaliyadda iyo cidda u xil saaranba. waxaa la go'aamiyey baabuur aan taarika lahayn magaalada inuusan dhex marin waayo amnigii buu khatar ku yahay dhaqaaluu nagala maqan yahay. hawshaa waxaa isla go'aansaday guud ahaan baabuur aan taarika lahayn magaalada aan inuusan dhex mari karin lana bilaabi doono baabuurta aan taarika lahayn oo magaalada ku jirta inay isdiiwaan galiyaan. waxaan ku amraynaa inay tagaan wasaaradda gaadiidka oo iska diiwaan galiyaan si taarika loo siiyo. sabti wixii ka bilowda gaadiidkii lagu arko magaalada isagoo dhex maraya waa la qabanayaa wuxuuna mutaysanayaa ganaax hadduusan isdiiwaan galin. baabuurta taarikada qaataan laysamadiina la qaato waayo dhibaatada magaalada ka jirta waad ogtihiin. taarikada qaabka lagu siinayo baabuurta dawladda go'aan kalaan ka soo saari doonaa laakiin cid walba wuxuu ku qasban yahay taarika qaato. billahi tawfiiq. Assalaamu alaykum. wasiirka maaliyadda Jubbaland mudane Cabdirashiid Jirre Qalinle oo kamid ahaa guddiga mideynta dakhliga Jubbaland ayaa isna la hadlay Jubbaland TV. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta oo bishu tahay 3/2018 waxaanu joognaa wasaaradda maaliyadda waxaanu nahay guddi oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam. guddigaas oo ah guddiga mideynta dakhliga dawladda oo maalmahan oo dhan ku howlanaa sidii dakhliga dowlad goboleedka Jubbaland account-ka mideysan loogu soo xareyn lahaa. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ahna gudoomiyaha guddiga mideynta dakhliga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa isna amarka wasaaradda gaadiidka ay soo rogtay kadib warbaahinta la hadlay. weyniya maanta inaan halkaan iclaam ka bixinno iyo warbixin kooban halka ay marayso hawsha naloo xil saaray oo ay golaha wasiirada go'aamiyeen madaxweynahana digriga soo saaray madaxweynaha digriga soo saaray halka ay marayso inaan tafaasiil ka bixinno. koow guddigan waa guddiga mideynta dakhliga iyo ilaalinta lunsashada hantida dadweynaha. hay'adaha dakhliga oo dhan baa ku midaysan hawsha meel fiican bay noo maraysaa. alxamdulillahi rabbil caalamiin guulo la taabakan ka gaarnay. gaar ahaan maanta waxaan shirkaan jireed u qabannay khusuusan gaadiidka ku sugan dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa la go'aamiyey oo guddiga isku waafaqay in laga bilaabo shalay oo ay talaado ahayd ilaa Sabtiga loo diyaar garoobo diiwaangelinta gaadiidka ku sugan Jubbaland. haddee tahay buugga lahaanshada haddee tahay laysanka iyo wasaaradda maaliyadda hormuud ay ka yihiin. waxaan dadweynaha gaarsiinaynaa in aan la wadan doonin baabuur aan sharciyeysnayn. Axmed Maxamuud Jaamac Jubbaland TV Kismaayo.